inoo soo dhamaaday kuwii aynu oran jirnay ama labadii qaybood ee ugu waaweynaa pharmacology-ga marka general pharmacology la joogo oo ahaa pharmacodynamic iyo pharmacokinetic ayaa inoo soo dhamaaday kabacdi maanta waxaan noo bilaaban doonaa dawooyinkii qaybta ugu horeysiin doonaana waxay ay ugu horeyn doona maanta qaybii la oran jiray antimicrobialku iyagu xooga waxay saaraan waa dhammaan waxay active ku yihiin pathogens-ku waa kuma pathogens-ku waxa weeyaan inta badan waxay ka tirsan yihiin qolooyinka la yiraahdo inay ka hortagaan sida pathogens-kaasina waa ayo oo mar labaad aan ku fahansiiyo waxaa viruska bacteria-da iyo waxa la yiraahdo parasite-ka iyo fungus-ka kuwaasay ka hortagaan oo ay la dagaalamaan kuwaana waynu dhigan doonaa hadduu Rabbi ogolaado maanta marka waxaan dhigan doonaa ugu horeysiin doonaa waxa la yiraahdo antibiotics-ka maadaama ay aad u muhiim yihiin waxaanu ka qaadan doonaa antibiotics-ka 7 groups-ka ay leeyihiin kolkaasaynu si fiican usoo xifdiyi doonaa halkan waxaan ka bilaabi doonaa inuu qof walba xifdiyo dawo kasta oo aynu dhigano hadduu Rabbi ogolaado intaa ka horeysa bal aan sharaxaad guud ka bixiyo waxyaabaha loo isticmaalo waxyaabaha kale halkay weeraraan intay u qaybsamaan waxaas oo dhan waayo ugu horeyn definition words kelmadaha halkan noogu yaala kelmadahan waa kuwa la qeexayo weeyaan waa qaar la qeexayo oo lagu qeexayo mid kastana aad ogaato marka aan ku idhaahdo tusaale ahaan antibiotics marka ku idhaahdo bactericidal marka ku idhaahdo bacteriostatic waa inaad ii kala fahantaa waayo ugu horeyn antimicrobial waxa weeyaan general term waa term ama erey loo isticmaalo ama loo qadariyo reverse loo qariyo to the drugs active against pathogen dawooyinka ku active-ka ah ee against-ka ku ah pathogens-ka waayo antibiotics waa maxay antibiotics waxa weeyaan waa drugs waa dawooyinka active against bacteria waa dawooyinka bacteria-da oo keliya active-ka ku ah ama laaya ama la dagaalamo waa la yiraahdaa bactericidal maxaa la yiraahdaa killing bacteria dhammaan bacteria-da ayuu dilaa marka taa hoose antibiotics-ka ayuu hoos imanayaa waayahay bacteriostatic waa maxay waxa bacteriostatic wax kale maaha waxa uu slowing hoos u dhigaa the koritaanka oo bacteria-da waa intaas kelmadda hadda mar dambe ku weydiin karaa bactericidal waa maxay bacteriostatic waa maxay antibiotics waa maxay antimicrobial waa maxay waa inaad sidaa u kala garataa waa inaad sidaa u kala garataa mid inay tahay mid anti ku ah bacteria-da dhammaan pathogens-ka oo dhan ama nooleyaashii ilma aragtiga ahaa oo dhan antibiotics-ka waxaa la yiraahdaa kuwa bacteria-da ku ah killing-ka bactericidal maxaa la yiraahdaa killing bacteria dilaan dhammaantood waa misilkii weeraraan bacteriostatic waxaa la sameeyay iyaguna waxa weeyaan in ay hoos u dhigaan koritaankii marka waxaa la yiraahdaa bactericidal waxa weeyaan waxay dilaan selka ayaa baaraan kuwan kale bacteriostatic-kuna waxay ka yara xidhaan intii uu samaysan lahaa cuntada uu samaysan lahaa ama protein synthesis-ki waayaan sii socono selection of antibiotic agent marka la dooranayo antibiotics ama antimicrobial oo dhan dawooyinka kullidiga ah pathogens-ka marka la dooranayo sidee loo doortaa ugu horeyn patient factors-ka patient-ka la eegaa immunity-giisu waa sidee dawooyinka miyuu iska xadidi karayaa renal and hepatic beerhaan iyo kelida waxaa la marka caafimaadka jooga renal kidneys lama yiraahdo waayo hepatic waa beerkii function waxaa la eegayaa immunity-giisu qofka ma hooseeya mise wuu kacsan yahay sidoo kale waxaa la eegayaa kelidiisa iyo beerkiisu ma shaqaynayaan si fiican ma u shaqaynayaan effect of site infection meesha uu abaaray ama infection-kaasi meesha uu ku dhacay ayaa la eegayaa ma brain barrier ma xuubka sare ee maskaxda ahba dawooyin qaar bay leeyihiin oo xuubka sare dhaafo waxaa la yiraahdaa blood-brain barrier baa la yiraahdaa halkaasoo waa xuub yaa dhaafi kara ayaa la isweydiinaya ama dawooyinka selection-ka marka la sameynayo lasoo xulanayo safety of agent badbaadadeeda iyadana waa la xulanaya course of therapy lacagta waa lagu kala dooran lacagta qaaliga lama iibsan karayo
haddii sida waa selection ka gelaysa quality tayadii baa la eegaya iyaduna oo dadku way kala duwan yihiin waxa kale tii rabtay C tii kale C waa wax lagu kala doorto dawada bioavailability tan waxa way u baahan tahay sharaxaadeedu waxa weeyaan intee in leeg baa frictions intee in leeg baa gaari karta dawada jidhka ama dhiiga waa lagu mudayaa qofka soo maaha intee in leeg baa dhiiga gaari kartaa bioavailability-ga way ku kala duwan yihiin markaa dawooyinku waayahay aan sii socono way classifying antimicrobial agent in la kala saaro antimicrobial agent hore maan kusoo dhigano antimicrobial muxuu ahaa general term loo isticmaalo pathogens-ku yay ahaayeen viruskii bacteriyadii parasite-kii funguskii afartaasay ahaayeen kuwa markaa waxaa loo kala saarayaa imse qaybood ayaa loo kala saarayaa qaar ku lidi ah bacteriyada qaar ku lidi ah viruska qaar ku lidi ah oo la dagaalama parasite-ka qaar la dagaalama fungalka waa antimicrobialska waxaa loo kala qaybinayaa 4 group antibiotics waxay ka hortagaan bacteriyada ama sidoo waxaad oran kartaa antibacterials waxay ka hortagaan bacteriyada antiviral haddaad maqasho viruskay ka hortagaan dawooyinka ka hortaga waxa uu dhigan doona antiparasitic kuwa ka hortaga parasite-ka antifungal kuwa ka hortaga funguska waayahay haddii sidaa u dhisan yihiin siday u kala horeeya baan u qaadana kaa ugu horeeya ayaynu gelgeli doonaa hadduu Rabbi ogolaado waaye classify antibiotic agent marka la kala saarayo antibiotic agent qaybta la yiraahdo antibioticska maxaa loo kala saaraa mode of action sida shaqada ugu qabanayaan qaar waxaa la oranayaa waa bactericidal kills the bag selka way dilayaan bag sel baa la yiraahdaa antibacteriostatic waxay joojinayaan the bag inuu fido selku inuu fido the bag selka multiplying inuu fido ama uu tarmo stopping the bag waxay joojinayaan selka multiplying inuu bato waaye spectrum of the activities waxaa loo kala qaybin karaa qayb kale oo spectrum awoodooda ay wax ku weerarayaan qaar waxa weeyaan waa broad spectrum agent qaarna waa narrow spectrum agent maxay kala yihiin broad spectrum agent waxay kala yihiin waa in xaddi badan ay weerarto waa against wide range wax xaddi badan oo ballaaran bay weeraraysaa of the bacteria oo ah bacteria weeraraysa but maxay gram positive and gram negative bacteriyada marka la qaybinayo waxaa loo qaybiyaa laba qaybood qayb waxaa la yidhaahdaa positive qaybna negative waa la yidhaahdaa qaybta awoodda badana positive waa la yidhaahdaa qaybta kalena negative waa la yidhaahdaa marka labadaba way weeraraysaa broad spectrum agent qaybta la yidhaahdo narrow spectrum agentsku iyagu waa against narrowing range wax yar bay weeraraysaa oo bacteria either waxa laga yaabaa either gram positive or gram negative inay ama ku wanaagsanaato positive-ka ama maxay negative-ka inay ku wanaagsanaato dawada in lagu daweeyo taa horena waxay ahayd wide range labada kalmood ka duwan yihiin laakiin labadaba way weeraraysaa waa broad spectrum-ka laakiin ka dambe ma weerarayso waayahay sii soconno according markaa eegayno their spectrum activities-ka marka eegayno awoodda antibiotics can be classified into 3 antibiotics-ka waxaynu u kala saari doonaa antibiotics-ka maxaynu soo niri marka hore waa antibacterial oo kuwii ka hortagaya maxay bacteriyada broad spectrum of drugs are effective against wide range varied microorganisms waa sidii hore aan kusoo sheegnay broadku waxay against ku tahay dhammaan ama xaddi badan oo ka tirsan microorganismka kuwa ilma qabatiga ama organismka ilma qabatiga ah waa xaddi badan effective against waa broad spectrum narrow spectrum waxa weeyaan effect against one or restricted group microorganism waxay xidhi karaan ama la dagaalami karaan hal
group oo kamid ah marka organismka taa horan variate wide variate bay taa hore ta dambena waa maxay extended spectrum antibiotics waa maxay extended spectrum is the term waa kelmad to antibiotics waxa loo isticmaala antibioticska that are effective waxay ku fiican tahay against gram positive inay ka hortagto waxa la dhahdo gram positive inay ka hortagto gram positive waxaan niri waa qaybtii ugu awoodda badnayd bacteria-da niri organism way gram positive organism gram positive ama bacteria gram positive la yiraahdo and also against waxay sidoo kale faa'iido u leedahay ama ay ka hortagtaa significant number of gram negative bacteria qaar ka tirsan ama qolo ka tirsan gram negative bacteria la yiraahdo waayahay tan hore ayuunbay kasii awood badan tahay taa hore ayuunbay tan dambe ka awood badan tahay waayahay aanu sii yaro socono mechanism of action xarakada iyo halka ay ka shaqeyso side of action halka ay ka shaqeyso dawadu ka howlgasho halka ay ka shaqeyso dawadu cell wall inhibitor formation horta waxaynu kala qaybinaynaa shanta qaybood baynu kala qaybinaynaa marna waxaynu kala qaybinaynaa 4 group marna waxaynu qaybinaynaa 7 group todobada group ee antibiotics ka tirsan yihiin waa inta buluuga ah ardayo la eeg waa inta buluuga ah ay buluugu yahay waa 7 groups ka antibioticska laakiin marka la eegayo siteska ama goobaha uu weerarayso dawadani waynu isla eeganaa cell wall inhibitor formation waxa la yiraahdaa cell wall inhibitor formation goobta cellka samaysanka formation waxa la yiraahdaa samaysan waxay xidhaysaa cell wall gidaarka marka uu leeyahay cellku ayay xidhaysaa inuu samaysmo kuwee markaa xidhaya penicilliniska kuwii la oran jiray penicilliniska iyo cephalosporiniska labadaas xidhaya intaas maxay xidhaysaa oo site-ka ama action-ka ay qabanayaan weeyaan waa meesha ay xidhayaan maxay tarayaan halkay xidhayaan waxay xidhayaan samaysanka cellka wall inuu samaysmo cell wall soo la fahmi maayo cellku wuxuu ka koobnaa cell wall cytoplasm nucleus oo garmaysaan qaybta cellka wall-ka la yiraahdo xidhayaan inhibiting wuxuu xidhayaa ama inhibitors waxay xidhaysaa of cell metabolism samaysankii metabolismkii uu sameynayay ama falgaladii ama metabolismidii uu sameynayay ama isticmaalkii metabolismkii uu sameynayay iyo shaqooyinkii ka dhex socday cellka ayay xidhaysaa waxay ka hortagaysaa prevent folic acid synthesis prevent inuu ka hortago folic acid synthesis samaysanka la samaysanayo folic acid synthesiska way maxaa ka mid ah sulfonamides waa dawooyinka la yiraahdo sulfonamides ayaa ka mid ah waayahay protein synthesis inhibitorska samaysanka protein synthesiska maxaa ka mid ah inay kuwa ka hortaga ee xidha inhibitor waa xidhitaan samaysanka proteinska kuwa ka hortaga ama xidha samaysanka proteinska maxaa ka mid ah tetracyclines baa ka mid ah aminoglycosides baa ka mid ah tetracyclines ku celceli tetracyclines aminoglycosides macrolides hal lagu celiyo insha Allah penicillin cephalosporins sulfonamides tetracyclines aminoglycosides macrolides waa todobada iyo fluoroquinolones kuwani waxay ka xidhaan nucleic acid inhibitors qaybta la yiraahdo waxay xidhaan inhibitor waxay xidhaan nucleic acid qaybtii nucleic acid la oran jiray ee ku tacalluqda DNA-da waxay farafareeyaan ama interfere farafareeyaan with the DNA-da farafareysa dawooyinka groupkaas markasta gruubada penicillinska waxa ku hoos jira 7 group ama 9 dawo ku soo jiray cephalosporinska inta way ka sii badan tahay sulfonamideska dawooyin ba ku soo jiray kuwa groupska kuwan 7 group ka tirsada way fluoroquinolones waa dawo kuwan waxay farageliyaan DNA-da waayahay cell membrane inhibitorska kuwa cellka xidha membrane-kii xubkiisa xidha inhibitor cell membrane waxa la yiraahdaa kuwa xubka cellka xidha isoniazid dawadan ayaa ka mid ah inta badan dhaxanta loo qaato isoniazid waayahay aan sii yaro socdo complication antibiotic therapy-ga caqabadaha ka imaada antibiotics therapy-ga waxa ka mid ah resistant waa lala qabsadaa kuwa lala qabsadaa
inappropriate use of antibiotics kuwa aan sidaa maxay loo isticmaalin habqantaa loo isticmaalo macnaha loo isticmaalo sidii qofku iska cunayo hypersensitivities penicillinska ayaa ka mid ah hypersensitivities oo xasaasiyadii oo qofku inaad iskaga muddo dawada maaha marka hore skin test samee haddii aanad sameyn qofka waxa laga yaabaa xasaasiyad inay ku kiciyaan direct toxicity toos waxa inta ugu badan dad kuwa sunta ku yara badan tahay ama inta badan aminoglycosides baa ka mid ah waxay keentaa dhaga xanuun bay keentaa ama dhaga sumo bay keentaa ototoxicity waayo kuwa kale waxa dhacda super infection waxa weeyaan in muxuu ahaayey ay infection uu keento maxay sidee ku keenaysaa broad spectrum antimicrobialisku broad spectrum antimicrobialisku waxay inta badan dawooyinka xaddiga badan leh ama xaddigoodu ballaaran yahay causes waxay sababaan alternation inay wax ka bedelaan of the normal flora bacteriooyinka normal flora waa bacteria dhegeysta bacteria weeyaan bacteriadani faa'iido ayay jirka u leedahay qaar bacteriada marka la kala qaybinayo qaar waa beneficial ah iyo qaar harmful ah qaar faa'iido leh iyo qaar dhib leh tani waa faa'iiday noo leedahayoo afkeenay ku nooshahay inta badan bacteriadaas ayay meesha ka saarayaan marka la isticmaalo dawooyin xaddiga ka badan waayo marka taasna waxay keentaa in ay adkaato in la daweeyo tusaale ahaan oo kale ay meesha inta ka kaxayso ayay caloosha tegaysaa normal flora hadday bacteriadaasi meesha ka tagtana waxay sababaysaa cudurro aan laga baaqsan karin oo tusaale ahaan la daweyn karin tusaale normal flora waxay iska degan tahay iyadoo caadi ah oo iskaga nool afka hadday caloosha tagto way adag tahay in la daweeyo deedna kuwani dawooyinkan waxay keenaan super infection micnaha waxay keenaan inay muxuu ahaayey dawooyinkii bacteriooyinkii qaar ay laayaan waaye maanta intaasaynu ku joojinaa wixii su-aalah waxaad iisoo dhigi doontaa insha allahu tacaala meesha kugu habboon is leedahay macalinkood ka weydiinaysa insha allahu tacaala aad iyo aad baad mahadsantihiin